Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay duqeyn iyo sidoo kale howlgal qorsheysan oo xalay ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo ee gobolka Bay kaas oo lagu beegsaday xarumo ay Al-shabaab ay ku laayeen deegaanka. Sida ay sheegtay Wasaaradda Amniga Koonfur Galbeed, ciidamada ammaanka ayaa howlgalka fuliyay abaara 10 habeenimo waxaana lagu bartilmaameedsaday 3 xarumood oo ku yaala qiyaastii 30 kiiloomitir duleedka Baydhabo. Maamulka ayaa sheegay in weerarka lagu burburiyay hub iyo sidoo kale qalab ciidan oo lagu keediyay goobaha la beegsaday, halka ay sidoo kale sheegtay in lagu dilay 18 xubnood oo ka tirsan Al-shabaab, tiro kalena lagu dhaawacay. Waxaa shacabka reer Koonfur Galbeed la wadaagayna jabkii habeennimadii xalay loo geystay maleeshiyaadka Al-shabaab ayaa lagu yiri war ka soo baxay Wasaaradda Amniga Maamulka ee Koonfur Galbeed. Maamulka ayaa intaasi ku daray in ciidamada ammaanka ay sii wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanka, isla markaana looga hortagayo isku day kasta oo Al-shabaab ay ku doonayaan inay dib ugu soo laabtaan goobihii la beegsaday. Si kastaba ha ahaatee, xogta ku saabsan khasaaraha iyo sidoo kale burburka ka dhashay howlgalka ayaa ilaa hadda ku kooban warbixinta maamulka Koonfur Galbeed, mana jirto xaqiijin madax bannaan oo ka soo baxday tirada rasmiga ah ama dhimashada ama baaxadda khasaaraha la sheegay. Sidoo kale weli waxaa socda howlgalka sida ay sheegeen maamulka Koonfur Galbeed. Howlgalkan ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli ciidamada dowladda, kuwa maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka ay muddooyinkii la soo dhaafay ay kordhiyeen howlgallada ka dhanka kooxda argagixisada Al-shabaab ee gobolada dalka, iyadoo gobolka Bay uu ka mid yahay deegaanada ay kooxdu weli ku leedahay saldhigyo iyo sidoo kale goobo ay ku fadhiso dhaqdhaqaaqyo ciidan. Al-shabaab ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxa ay la kulmayeen weeraro joogto ah oo kala kulmayaan dowladda federaalk Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada daraawiishta maamulada iyo sidoo kale ciidanka kuwa dadka deegaanka ah, iyadoona halkaasi lagu beegsaday dhowr xarumood oo Al-shabaab ay ku lahaayeen, sidoo kalena dib looga saaray goobo ay halkaasi ku deganaayeen, iyadoona dowladda federaalk Soomaaliya ay ku dhawaaqday howlgalkii ugu cuslaa oo kaas oo lagu soo afjarayo maleeshiyaadka kooxda argagixisada Al-shabaab ee ku sugan gudaha maamulada dalka iyo sidoo kale qeybaha ugu muhiimsan ee dalka ay ka joogaan.